معجزة أرن أدون كسو كرديسي يعدي وناك يخير كسو كرديسي عدي شر هي مشكلات هي كلاكع كسو كرديسي أي قرآنك حديثة كتابة تاريخ أنتم بكور رميان نبي محمد صلى الله عليه وسلم قف تاريخ ذو حسطه isaga ugu weynaa isaga ugu xeel dheeraa isaga ugu heer sareeyay gaal iyo muslimba waxay qoreen qof ummadda ama ummad micnihii Allah Muhammadiyaba ama ummadihii qurunta xataa inaga horeeyay cid ka saameyn badneednay Muhammad sallallahu alayhi wasallam inaysan jirin bay qireen oo taariikhyahan kasta uu qiray waa marka labaad masaa'il soo baxay waqtiyadan dambe oranaya xafladaha sanawiga ee marmar la qabanayo ee taariikh nololeedka ambiyada ama awliyada lagaga waramaya waa waxaan sharciga ku banaanayna shirkiga oranaya bal markaynu cilmiga xaqiisa ku eegno ilaahay xaq u sugnaaday miyaa in laga waramo dhalasho iyo dhimasho iyo dhaqasho oo intaba xuquuqda ilaahay miyay kamid tahay dhimashada dhalashada iyo dhaqashada toona waa maya ano دليل كذا سورة قل والله سورتها شو سمع وقول ركمده أو إلهي كجو الرميو اللهم صل على زين الوجود حقي سكجو الرميو أي إلهي وحي نقول لي هاي ودليل شنيا قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محل شاهد كان وحويان لم يلد إلهي لما دلين oo taariikh dhalasheed oo kitaabta taariikhda ama ilaahay quraanka laftiisa inoogu sheegay ama xadiista nabigu sheegtay oo xaq ilaahay leeyahay laga dhigay ma jirto ilaahay ba afkiisa inagu leeba ilaahay lama dhalin walam yulad waxna ma dhalo walam yakun lahu kufuwan ahad cid u beegtoontaana ilaahay ma jiro sida daraadeed xaqan waxa uu sugnaaday oo laga waramaa dhalashadoodii iyo dhimashadoodii iyo dhaqashadoodii iyo dheeftoodii waa makhluuqa ilaahay sameeyay waa cidii sharfanayd sharafteedii ba ilaahay kaga waramay quraanka kariimka cidii dhimashadeeda iyo dhalashadeedu ay sharfanayd ba ilaahay kaga waramay cidii dhimashadeeda iyo dhalashadeedu ay sharfanayn ba ilaahay kaga waramay maxaa kamida aayadaha ilaahay kaga waramay inta inaan kitaabta taariikhda u gelin quraanka laftiisa ee mawlid ilaahay ku xusay micnihi dhalasho مواليد القرآن كحسن دلشوينك إلهي تاريخ ذي التذكير ذي حسك أسمي إلا ثانوي جاني وحس وسوقاديد وركي يأرنكي يدعوين كي دعي دلشدا هي دعوين كي دعي لمشدا هي دعوين كي دعي أنت أحد كاسنولا نبيها هذا وليها هذا قف كله برشة سامين كله حدودونها هذا وحكم إذا اللهم صل على زين الوجود إلهي إنه كور رمي نبي عيسى دلشدي سويح دعي وكتابك عزيز شرفت له القرآن كان كريم كور رمي وإلهي وحوليه هاي فأجاها المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نبي صلى الله عليه وسلم نبي عيسى مركي هو يدي دلسي جيت كي أي تمي أي قبصتي timirta hay engegnaa ilaahay yiri geedkan ruux midhaha lagu soo daadinayaa iyo hadaladii ay ku hadashay oo ahaa alla maan intan ka horteed dhinto maan ahaado mid la iska ilaaway iyadoo ceeb iyo fadeexad ka baqayso ah ilmo bilaa aaba ah oo ilaahay ku ahaysiiyay dadka ilaahay inuu ahaysiin karo ilmo bilaa aaba aan qirsanayn inay yiraahdaan inan bay meelaha kala timido way bay yiraahdeen markaasay leedahay bilaa aaba aniga inan iigu ahaaday iyadoo taa ka warwarsan waxay leedahay hadda mabu dhalana waa markii lagu abuuray geedka ay haysatay umuleysay intuusan khadkaba iman caalamkan ba soo gelin baa ilaahay ka warbixinaya oo leeyahay hooyadii geedkii bay timi Maryam bintu Imraan markaasay geedkii cuskatay markaasay hadalkan ku hadashay ay leedahay yaa laytani mitu qabla hada alla maanta ka hor dhinto wa kuntu nasiyan masiyan maanta ka hor ahaado mid la ilmaamay Allahu akbar waxa hadana ilaahay suuratu Maryam lafteeda kaga waramaya dhalashadii Maryam bintu Imraan lafteedu ay dhalatay iyo iyadoo dhalan alla barigi hooyadeed ay ku alla bariday tiri Allahumma salli ala zaynil wujud
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت من سورة آل عمران الآية صدح بقول إيو صدن يشن آية كأك آية محا إلهي إنه عدينيها مريم بنت عمران هو يدد با إلهي بريده waxay tiri ilaahayo waxaan ku hibaynayaa beerkayga wixii aad geliso in adiga aan shaqada